ayaa jira baarlamaano kale ayaa waxa jira buuq iyo in kursi la isku garaaca u diyaar ayaa jira laakiin meesha waa masjid waa baytullahi jalla wa ala waa markaz weey in ninkii wadaadka shalay bulug maraamka lagu inuu aqriyo maanta inuu hawlo kale la soo baxa maaha wixii masaa'il diiniyan ummadan iyada culimadeeda marka u joogta bi idin Allah subhanahu wa ta'ala xalinaysa laakiin adiga labadiina maanta kuleetig intaad isku qabsataan maanta la kala jiido maxabatu dunya way waxaana iman doonta xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamaye waqad qila wala yiri inta tarabta wada hesha dunyada marka lama hortaagi karto yawm alqiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah markas baan u soo khidmeeyay ummad baan isku waday dacwadaadan badbaadiyay marka qarbiga la joogay buuqa runtii annaga ma maqalno wadanka markii xitaa wax naga soo gaaraan waxa la maqlaan masaa'il diini la isku qabsaday iyo group qabsada laakiin yaa ka talinaya hawshan waa hawl cusub maxabatu dunya mafsadada ka leedahay waxa kamida tuqyaan kibir ilan qofka markii shilin Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantiisa uu soo galiyo uu kibraya waa meesha uu leeyahay qala Allah ta'ala kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna insaanki waa uu kibray wuu qooqay meel aanu gaarsiisnayn buu isgaarsiiyay meel aan la gaarsiin buu isgaarsiiyay maxaa yeelay wuxuu isbiday inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka deeqtoonaado ama maal buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantiisa galiyay ama awlaad tirab badan oo garabkiisa taagan baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay ama adduunyo isku qoofalan baa Ilaahay soo hordhigay wuxuu leeyahay khalaas ana kaafin way ugu filan tahay wuxuu yiri ibn kathir ibn abi hatim baa wuxuu yiri wuxuu ii sheegay ismaaciil ibn as-saigh ja'far ibn aun uu ka soo xigtay isagana abu umays ka soo xigtay wuxuu leeyahay abdullah baa wuxuu yiri man humani la yashba'an laba ruux oo gaajaysan waligood ma dhargayaan saaxibul ilmi wa saaxibud dunya qofka cilmiga raadinaya ma dhargay maanta mas'ala soo ziyaada kitaab baa soo baxay uu ku haynaya qofka adduunyada raadinayana runtii isagana ma dhargayo maxay 24 saac business baa inta laga sheegay sheer baa la furo buu ku haynaya maanta dhan markaas wuxuu yiri amma saaxibud la yastawiyan laakiin labada isku mid maaha amma saaxibul ilmi fayazdadu rida ar-rahman haduu ilmi uu raadinayo ilaahi subhanahu wa ta'ala raadinkiisu ziyaasanaya saaxibud dunya sooma fayatamada fi at-tughyan kibir iyo madax adeeg buu ka sii qaadaya markaas wuxuu aqri qawluhu jalla wa ala kalla innal insana la yadgha markaas hadana wuxuu yiri marfuuc weeye man humani la yashba'ani talibul ilmi wa talibu ad-dunya waxyaabaha ka imanay waxa kamida mafaasida ay leedahay waxay u badan tahay qofka markuu adduunyada isiiyo in aad fatwootid fataawi oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku been abuuratid oo iyadoo aadan u aabayeelin waxa meesha ka imanay ujeedadada ay tahay un kaliya bal adduunyada marka ilaasho wuxuu leeyahay ibn al-qayyim oo in fara badan ka soo xigeenay kitaabkiisa wuxuu leeyahay man athara kullu man athara ad-dunya min ahli al-ilm wastahabbaha qof kasto ahli ilmi adduunyada jeclaada iyada door bido isisiya fala budda an yaqula ala allah ghayr al-haqq fi fatwa waxaan laga maarmin aanu ka baxsanayn inuu ilaahay ku been abuurto oo fatwo ilaahay raali aanu ka helin inuu dadka u fatwoodo haddana wuxuu leeyahay maxaa yeelay ahkaam rabbi jalla wa ala la taati ala daiman ma taati ala khilaf aghrad an-nas ahkaamtan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu jideeyay iyo manhajkan ilaahay subhanahu wa ta'ala oo farabadana uu khilaafsan yahay waxa aniga aan raba adiga aad rabtid waxa laga yaabaa dan gaar aniga inaan leeyahay laakiin Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala hadafka meesha uu ku sheegay uu khilaafsan yahay hadafkayga aniga waxa laga yaabaa dan gaar inaan anaga u socono laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala iraadiisu markay ka duwan tahay ariga markay dhacdo buu leeyahay ibn al-qayyim al-jawziyya waxay u badan tahay qofka marka inuu uu qalloociyo fatwadii markaas wuxuu leeyahay idha kana al-alimu wal-hakimu muhibbayn lir-ri'asa muttabi'in lish-shahawat lam yatim lahum dhalika illa bidaf'i ma yudaduhu min al-haqq qofka caalimka ah ninka kursiga ku fadhiyay labadooda haday kursi ilaalisiin adduunya jacaylna marka uu ku jiro waxa kaliya kursiga ku ilaalin karaan cilmigiisa oo qofka kan lagu leeyahay waa caalimna uu ku ilaashan kara wax kale maaha inuu xaq kasta ee ka hor imanaya ama did ku ah kursiga ninkan uu ku fadhiyo ama cilmigiisa lid ku ah ama booskan isaga uu taagan yahay inuu celiyo oo ka hor yimaado mooyana wada kale marka helaya marka malaha markaas wuxuu aqri qawluhu jalla wa ala fa khalafa min ba'dihim khalf ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثل يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه مركزوا حيردتكم آيات يبو تلمامي الله سبحانه وتعالى أوليها كوا حنبا كدن بي كتاب كيبا يدحلان وعلماء لكن الدنيا بربر كيدا رفصانا ينبير مركي خلط قالاني وحين سيغفر لنا إله وندم مدافي دونا هذا نعرين كلا إيمان سيغفر لنا إله وندم مدافي دونا وماشي عالم السوء يولد حمه وكسب بحيوه إن آيات والبابا ولقنت وكجبيه
ninka kan kursiga ku fadhiya ama wasiirka kan inuu fatwoodo inuu aayadan uu luqun jabiyo si markaas sumcadiisa aanay u lumin oo dad fara badan boobale fara badan uu helo saadarteed uu sahlantay inuu yiraahdo ummadda oo ribada u baneeyo maxay wuxuu ilaashanay number u ilaashanay maxay dadka say u badan yihiin wa in tuti akthara min fil ardi yudilluka an sabilillah boqolkiiba 90 inta ribada daydayaysa ayaa badan weyna ka badan inta xalaasha u raadinaysa waa inuu marka fatwooda ribadii waa inuu fatwooda marka wax alla wixii marka la xiriira maxay uu yiraahdo kan way shaygu uu banaan yahay maxay yeelay wuxuu rabaa number ka kala daadan laha inuu isku keeno waa inuu fatwoodo oo dawladii meesha ku hay waxay doontaa ha noqotay maxay yeelay wuxuu rabaa inuu ilaashado number gaara idan mas'alada dibkeeda marka leedahay مفاسد إلا ذا وحكمدا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه وناك ضدك أوفره حمدا مركا أكرر محاد ديدي وحكى لماها محال الدنيا جعلك دبات قفك إذا حال سينا يسير وحكمدا إنه بخير كدتك أنا أشيغل أبو سعيد الخدري يقول لي لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهد قفكين إساق ضدك كبا قنايا يانو حق كآمسين حق هدو أركا هيرا هذا هدو أركان هيراهو محايا لأنه لا يقرب من أجل بقدنتو يعني لا تقرب من أجل فوق مسو دوينيسو رزقنا كما فوقينيسو إليه سبحانه وتعالى شغل المركب وقري إذن الدنيا جعلك وحيابا رقفك ودحلسينا وحاكم إذا هذا أركي شيء منكر إنك كآمسين محايا وذا آمسي إنك دنبا يضا خلاطك ونوم بغضو يضا خلاط أي نوم بغضان هذا خلق الكجرو دباتوين فربضان أي كجران محانا آمسي وحانا سلنا مركا كلمة تراهدين أما الله حرا maxaan wada aamusiyo anagoo dhanba ama meel kale lagu geeyaa maxaa yeelay haddii aan ka fakari lahayn aakhare kaliya ay noo muuqato fulinimada wayna dayn lahayd waxaa keenay inuu qofka ibac markaa ku xiranto oo aakharaba aanay u muuqan maxaa yeelay adduunyaan ishordhigay adduunyada markaan ishordhigana wax kaloo ii muuqan kara markaa ma laha waxaan ilaashanayaa meesha aan joogo iyo xorriyadda aan u soconayaan ma ilaashanayaa idan waxay ka mid tahay ixda almafaasid ee marka adduunyada oo leedahay mafaasideeda waxaa ka mid ah هيلكي أمده أي سجيسة أي دب ودعية وفي نفس الوقت هيبتنا وحى جليسة عذا وجمر كان نجسه هرجة الضجال كان كل الجنة هيبت بس جليسة وان كهيبي سننا حديث أو حديث سنتين أو كلما حب الدنيا لجاها الله حديث كأوه ريدتك كسو دقدقة وكان حديث كي ثوبان وي رسولك صلى الله عليه وسلم يري يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وعلى غيابة أما بحليس أدوتهن إني marka cadawgu uu saas ama ummadaha dhanba saa in kugu dul xoomaan buu markaasuu ninkii saxaabiga wuxuu yidhi amin qillatin yawma id ya rasuul allah ma yaraan dad aad u yar miyaan nahay cadadkeeni miyaa yar markaasuu yidhi laa antum kathiir aad baad u badantiin maalinta iyada ah walaakinakum guthaa'un ka guthaa'i sayl laakiin daad xoor baad tihiin wax ka soo qaad ma tihiin wax dad micnaha wax ku fadhiya ma tihiin macna markaa ma lihidiin rasuulka sal alla alay wasallam markaasuu wuxuu tilmaamay wuxuu yidhi وماشان أسعدي ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم عدو هيبيسسد كهيبيسن يبقى إلهي سبحانه وتعالى لا تسكى قاضي ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن إلهي قلبي جن وحو قلنا يا وهن بو قلنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الوهن أي وحي يكون نقطة فوكابولري عصب مركز يوحي يا رسول الله وما الوهن محل لجد وهن محوية مركز حب الدنيا وكراهية الموت إن الدنيا جعلاتان موت كان عاد نعضان موت هدي للنعه الدنيا أجعلاتان ووحى كان إن عدوين أود مركا يشو ومضاها دن انتي ساء سوق دول حومان مركا مضح إنك كويان أن الذي كهي بيسن وأن نقطان ومضح دتك أقول ليتا يعني وضع كيسا ملك سوى التكتيد حديث كان شرح ومبهنا محال وداد والباو مالين بودول فريسو شرحي أو شرح دي بدول استاكتي وحا شرح كان خير بضان حديث كان لغو شرح لهانا وواقع ما أنت إنك نوم بغض الواقع الماثل أمامنا أي شرح مركا إنه قفلا شرحا إنه قفك وأركه ويكون وقتا مسلمين ما أنت ماشي مريان كيف الكيد ماشي قدام بيس مسلمين مريا متك الجمادي ومسلم متك الجورع ومسلم متك القطمري ومسلم متك ديجي سودان ومسلم متك وحقوري كان ومسلم متك وحفهم ومسلم ملك ست ومسلم شرق وغرب ومسلم وحق لما محايا نك المسلم كأ أيها وحي صدق وحلو مقع حب الدنيا